nin u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ku hanjabay inuu cuni doono dariskiisa dad iyo xoolo wuxuu mindidiisa la gaaro kadibna reerkiisa uu karin doono waana haddii uu sii socdo cudurka coronavirus ma u malaynaysaa in xaalad waali aad ku soo kordhiso cudurka coronavirus ayaa la weydiiyay Alex Jones oo ku hanjabay inay suurtagal tahay in uu ku kaco falal qalafsan oo ugu hiilinayo qoyskiisa iyo carruurtiisa inta ay jirto bandowga iyo cabsida laga qabo gaajada uu wato cudurkan coronavirus waraysi la yeeshay ninkan u xibsi marba inuu noqdo dad qalato ayuu Alex Jones sheegay inuu isu diyaarinayo sidii uu dadka dariska uga bilaabi lahaa cunistooda kadibna xoolo wuxuu arko uu karin lahaa qoyskiisa waase haddii ay la soo dariso gaajo ka dhalato cudurka coronavirus maadaama guryaha dadka lagu amray inaanay ka soo bixi karin Alex Jones oo u dhashay dalka Britain ayaa si cad u sheegay in haddii uu sii socdo bandowgan in laga yaabo in daruufta ay ku kalifto in dadka dariskiisa ilmaha iyo haweenkooda uu u qalo qoyskiisa si ay nolol maalmeed uga dhigtaan waan cuni doonaa dadka dariskayga waana qiran doonaa inaan cuno ayuu yiri Alex Jones isaga oo saadaalinaya mustaqbal mugdi ku jiro cunno yari soo wajihi doonto dalal badan oo caalamka ka tirsan carruurta u dhala ayuu sheegay in uu qali doono xoolaha sida dameeraha dariskiisu dhaqdaan wuxuuna sii daba dhigay carruurtayda gaajo ku fiirsan maayo Alex Jones oo baraha bulshada hadalhaynta ugu badan ay tahay sheegashadiisa in uu mustaqbalka isu bedeli doono dad qalatanimo ayaa si weyn looga naxay fikirkiisa go'aanka uu qaatay saacadihii la soo dhaafay